السلام عليكم. dhalmala'aantu waa xaalad ka jirta dunida oo idil. lixdii lamaano mid kamida ayay xaaladaasi la soo diristay. cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin saddexdii xaalad oo arintaas la xiriirta mid kamida inay ka timaaday tayaxumada shahwada iyo dhalmala'aan la xiriirta dhinaca ragga. sidoo kale dhalmala'aanta kaliya laguma dawo laakiin mararka qaar waxay u baahan tahay in qofku noloshiisa wax ka bedelo. mowduucan waxaan uga hadli doonaa 5 calaamad oo lagu garto shahwada tayadeedu liidato iyo dhalmala'aanta ka timaada dhinaca ragga, iyo sidoo kale 6 xaalad oo xal u noqon karta. ku soo dhawaada mar kale iyo mowduuceena. tayaxumada shahwada ragga iyo dhalmala'aanta lala xiriiriyo dhinaca ragga waxaa lagu qeexaa waa wax soo saarka shahwada ragga oo aan awood u lahayn inay bacrimiso ugxaanta diyaarka u ah in uur oo ka dhasho. sidoo kale calaamadahan soo socda waxay qeexi doonaan shahwada tayadeedu liidato iyo dhalmala'aanta lala xiriiriyo dhinaca ragga. 1. libido, ninka ragga ah oo aan diyaar u ahayn ama aan daneyneynin mar walba inuu la kulmo xaaskiisa. 2. erectile dysfunction, xubinta taranka ee ragga oo danta marka uu ku guda jiro ninka ragga ahi howshiisa dhanka taranka ee kulanka. 3. sperm count, tayada shahwada iyo tirada shahwada oo liidata iyo sidoo kale caafimaad qabkeeda oo hooseeya. 4. sperm motility, shahwada oo aan lahayn saynta ay ku dabaalan lahayd si ay u gaarto ugxaantu meesha ay diyaarka ku tahay. 5. testosterone level, hormoonka raganimada go'aamiya ee ragga isla markaana qayb ka qaata bacrimida iyo soo saarista shahwada oo yaraada ama hoos u dhac ku yimaado. 6dan xaalad ee soo socota waxay xal u noqon karaan 5tii xaaladood ee ka horeysay ee aan ka soo hadalnay. 1. waa qaadashada borotiinka lagu magacaabo D-aspartate acid supplements. borotiinkaas oo qayb weyn ka qaata soo saarista shahwada iyo koriimada ama kor u qaadida hormoonka testosteronka ee raganimada go'aamiya. sidoo kale borotiinkan waxaa laga soo saaraa xaniinyaha. 2. sameynta jirdhis joogto ah, jirdhiska joogtadaahi waxa uu qayb ka qaataa caafimaad qabka guud ee jirka iyo sidoo kale wax soo saarista kor u qaadida hormoonka testosteronka iyo sidoo kale in ugu dambeyn ninka raggaahi uu gaaro in uu soo saaro shahwo caafimaad qabta. 3. qaadashada vitamin C, vitamin C-gu waxa uu qayb ka yahay difaaca jirka, sidoo kale sunta ayuu jirka ka saaraa. marka waxaa yaraan doonta haddii vitamin C-ga aad badsato inay yaraato caqabadihii soo wajihi lahaa shahwadaada in ay dhimato oo aad soo saarto shahwo caafimaad qabta. 4. nasiinada iyo hoos u dhigidda ama yareynta isku buuqaaga ama stresskaaga, sababtoo ah qofka stresska ama isku buuqa ku jira waa qof daalan diyaarna aan u ahayn in uu la falgalo waxyaabaha hareerihiisa ka socda ama noloshiisa inuu maamulo. 5. qaadashada vitamin D-ga, vitamin D-gu waxa uu qayb ka qaataa wax soo saarka shahwada iyo caafimaad qabka guud ee jirka iyo sidoo kale koriimada hormoonka lagu magacaabo testosteronka si loogu helo levels ama heerkii looga baahnaa. 6. qaadashada macdanta sinkiga, macdanta sinkiga waxaa laga helaa hilibka, malayga, digaaga iyo waxyaabaha la midka ah. macdantan sinkiga waxay kor u qaadaa leveleska ama heerarka looga baahan yahay testosteronka ee ah hormoonka raganimada go'aamiya iyo sidoo kale caafimaad qabka shahwada. marka waa muhiim in sidoo kale qofku uu qaato macdanta lagu magacaabo sinkiga. waa mahadsantihiin, halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuceena.